wakaaladaha sirdoonka ee dunida waxay kaalin muhiim ah ka qaataan sugidda amniga qaranka. waxay asal ahaan yihiin hay'ado dawladeed oo mas'uul ka ah ururinta, falaqaynta iyo adeegsiga macluumaadka la ururiyay, ujeedada fulinta sharciga, ilaalinta amniga qaranka iyo fulinta ujeedooyinka siyaasadda arrimaha dibadda. hay'adahani waxay shaqaalaysiiyaan shaqaalaha ugu fiican oo soo saari kara xitaa xogta qotada dheer ee la aasay iyagoo khiyaanadooda wata. hay'adaha sirdoonku waxay noqon karaan laba nuuc: sirdoon amni oo la xiriira hanjabaadaha gudaha iyo sirdoonka shisheeye oo ku lug leh ururinta macluumaadka la xiriira howlaha dawladaha shisheeye. dulucda baahintayada waxa ay tahay habdhaqanka sirdoonka Ruushka oo in badan oo ka mid ah ku howlan inay ka taxadaraan in xogta sugan ee qarankooda, si gaar ah hoggaanka ugu sarreeya dalka oo ugu horeeya Putin, xogtiisa looga ilaalin lahaa dawladaha shisheeye oo malaha ay aaminsan yihiin Moscow inay khatar ku yihiin qawaaniinta qarannimadooda. sida ay wararku sheegayaan, wakiilo ka socda hay'adda sirdoonka federaalka Ruushka ee magaceeda loo soo gaabiyo FPS ayaa mar kasta oo uu safarro ku jiro waxay jeebka ku sitaan dabcan kaadida iyo saxarada madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. waxa ayna wakiilada hay'addu ku soo ururiyaan boorsooyin gaar ah oo uu leeyahay madaxweynaha Ruushka si baa la yiri loo ilaaliyo siraha caafimaad ee madaxweyne Putin. warbixintan oo ay dusisay majalad ka soo baxda dalka Faransiiska ayaa lagu sheegay in dhaqankan uu soo socday tan iyo markii uu Putin booqday Faransiiska sanadkii 2017 isla markaana uu halkaasi kula kulmay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. muuqaalka kan aad aragtaan waa xilli uu hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin gugii 2017 uu ku sugnaa dalka Faransiiska isagoo halkaasi kula kulmay hogaamiyaha dalkaas Emmanuel Macron. waxaa cajiib ah habka uu hogaamiyaha Ruushka u isticmaalaya suuliga. ku dhawaad 6 ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah ayaa gudaha iyo dibadda jooga. in yar kadib waxaa soo baxaya shakhsi ka mid ah ilaalada gaarka ah ee madaxweyne Putin. waxa uu sidaa boorso, taas oo loo malaynayo inay ku jiraan dabcan xogta suuliga ee madaxweyne Putin. dhacdadan yaab kale ayaa mar sii horeysay iyadoo muuqaal ah waxaa la sheegay in lagu arkay barta internetka uuna ku faafiyey suxufi ka tirsan BBC-da, iyadoo la arkayay 2 ilaalo ah oo qalka ka soo baxay oo midkood sitay shandad gaar ah, waxaana daba socday madaxweynaha Ruushka oo ay weheliyaan 2 kale oo ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah. inta badan tani waxaa loo fasiran karayaa inay sirdoonka Ruushka aad u ilaalinayaan in la helo hidasadaha. tani waxay qubarada amniga ku qaabeeyeen. tani waxa ay qubarada ammaanku ku qeexeen inay tahay in hay'adaha sirdoonka Ruushku ay ka hortagayaan in la helo xogta hidasidaha madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. hay'adda federaalka Ruushka ayaa ku qaybsan waxyaabo ay ka mid yihiin ilaalinta siraha gaarka ee madaxweynaha, iyadoo ay jiraan hadallo duulduul ah kuwaasi oo sheegaya inuu qabo jirooyin halis ah sida kansarka, balse weli tafaasiil sugan oo aan sarbeeb ahayn lagama helin tani.